waxay sheegaan culamadan taraajumtu waxay dhahdeen cabdillaahi ibnu mascuud oo cumaamad fiican sitaa soo galay bay dhahdeen meel suuqa mid tuuga kuwan wax khiyaameeyaabaa saxaabigii intuu jeediyey ka hoos qaaday cumaamadii dabeetana markii uu waxbaabadiyey sidii meesha ka tagu cumaamadii waayey mid baa la tegey dabeetana dadkii baa damcay inay habaaraan dee cabdillaahi ibnu mascuud oo saxaabi weyn oo jaliil oo taabiciintiisii iyo ardadiisii dhex joogo cumaamadiisii laga hoos qaaday waxay dee uun rabeen inuu sheekhu yidhaahdo saxaabigu kaas ingaarida ha fuusho iyolay waa aaminta yidhaahdaan dabeetana wuxuu ku yidhi allahuma inka ilaahayow buu yidhi kaas hadday baahiyi u geysayna ilaahu ku qani yeel buu yidhi wuu ku kaaftoomaa hadday ayaanay baahiyi u geyninna ilaahu waxaad ka yeeshaa buu yidhi aakhira khataayaah dembigiisa kii ugu dambeeye dembi uu galo ilaah uga dhig buu leeyahy yani waa tuug buu u ducaynayaa tuugii cumaamadda ka qaaday ayuu u duceeyey wuxuu leeyahay ilaahu haddaan waxba haysanna ku qani yeel hadday gaf ka ahaydna gafkiisii ugu dambeeyey rabbow ka dhig buu leeyahy waxyaabaha keena laabtu inay xaadhnaato waxaa ka mid ah alinfaaq fii sabiili illah wax bixinta qof kastoo aad u cadhaysnayd hadduu 2-3 jeer wax ku siiyo war khayr allah siiye kaasi waa nin ragaad odhan doonta iskadaa socanka maaha hadduu 2-3 jeer wax kuu dhiibo adigoo aad afka ugu buurayey waxaad leedahay war khayr ha hele ninkaasi waa nin wanaagsan waa ka yara xumaatay maalintaas waa nin khayr badan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay tahaadu taxaabu buu nabigu yidhi